tababar ay ka faa'iideysteen ku dhawaad 100 haween ah ayaa lagu qabtay magaalada Singalood ee gobolka Minnesota. Tababarkaasi ayaa waxa uu ku saabsanaa sida aad ula socon kartid caafimaadkaada. waxyaabaha sida gaarka ah looga hadlay oo la barayay haweenka ayaa waxaa ka mid ahaa cudurka aamusan ee dilaaga ah ee loo yaqaano kansarka. gaar ahaan waxaa la faahfaahiyey kansarka ilmagaleenka ku dhaca iyo midka ku dhaca naasaha. tababarkani ay soo qaban qaabisay ururka Isuron oo saldhigooda weyn uu yahay magaalada Minneapolis balse xarumo kale ku leh magaalooyinka ay Soomaalidu ku badan tahay ee gobolka Minnesota. waa Sahra Shukri waxaan idin sheegaynaa programkan meesha la isugu yimid waa program ka hadlaya qaybta caafimaadka gaar ahaan cudurrada dumarka ku dhaca ay ka mid yihiin kansarka. organization-kan ayaana baraya waxay nooga yimaadeen qabri bay waa jeclahay qabri bay ilaa qabri bay waxaan u iri waxay nooga yimaadeen Minneapolis marka ku soo dhawaada waxa inaan ka faa'iideysano markan waa hordhac uu ka sii ballaaran doonaa waxyaalo badan baa macnaha ay noo ballan qaadeen inay na bari doonaan laakiin hadda waxa way tijaabo casharkan waxa inay isku imaanshahan inuu tijaabiyo bal sidaan awood u leenahay inaan isku imaan karno oo wax u baran karno oo aan macnaha cudurradaas dumarka ku dhacay halista ku ay waliba ku soo badanaya wadankan aan joogno si looga hortago cudurka daaweyntiisa waxa ka fiican ka hortaga ayaa ka fiican marka sida looga hortago iyo sida la isku daaweeyo labadaba waxbay naga tusayeen wadan. Fartuun Weli oo ah madaxa iyo aasaasaha Isuron isla markaana ku takhasustay caafimaadka dadweynaha ayaa tababarkan bixisay iyadoo u sheegtay dumarkii ka soo qayb galay in ay la socdaan caafimaadkooda. meel kastoon tagno haweenka Soomaalida waxa aanaa gobolada waxa aanaa tuulooyin kale oo Minneapolis iyo St. Paul ma naqaano arrintan shantii sano la soo dhaafayna waxaa la aasaa haween badan oo Soomaaliya oo u dhinta marka dhimasho anagu ma celin karno laakiin Soomaaliya markii dadku joogay Soomaaliya haweenaydu way iska dhiman jirtay ama way iska umraaci ama waxay u dhimantaba lama yaqaan si uu leedahay bay teedii timaada marka caafimaad isbaar iyo dhakhtar iyo waxa ma lihin anagu laakiin hadda waxaan imaanay wadan badiyaa leenahay health insurance cardkii aan leenahay saasi tahay dhaqaatiirta loo tagayna ma yaqaanaan dhibaatooyinka ugu badan oo aragnay waxay ma yaqaanaan fircooniga guditaanka ma yaqaanaan marka haddaan xitaa u tagno ayagaa midabta koor nagu sameeyno ma yaqaanaan siday noo baari lahaayeen. markii uu dhamaaday tababarkani ayaa qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha barnaamijka ka mahadceliyay iyagoo codsaday in la sii joogteeyo tababarada looga hadlayo caafimaadka. aad u mahadsan tahay maadaama cilmigaaga noo soo kordhisay aniga hadda last minute anigoo ilmo dugsi geynayay oo hooyo soo visit gareynay baa la ii sheegay waxa aan ugu imaatay marka waa is soo diyaariyay wala waa iska imaaday laana wax faa'iido oo life oo gabar walaashay oo af Soomaali ugu hadlayso aan faa'iiday last time inta imaaday waxa laga hadlayay depression gabdha cadaan ah oo aan la shaqeeyo shaqadeedii school aniga teacher aan ahay ilmaha yarka wax baraa marka waxaan haysan miirina inta ku haysan isla hoolkan my hoolka actually ka soo horjeedo ahaa marka waxa ka faa'iideysanayna shaqadeena iyo waxay ku saabsan tahay marka gabar dhakhtar ah noo imaatay oo ku saabsan depressionka marka sida u dhageysanay gabar adiisa ku dhageysanay isku mid ma ah si wanaagsan oo clear oo luqadeeda ku hadlaysido oo dhaqankayga igu soo daraysido oo wax walba wax aan jeclaa ii sheegtay aad u mahadsan tahay maxay ilaahay nijeerada waan ka nax wallahi ma ka sheegi karo wax marka inaan is daryeelno maadaama aan hooyo ilmo badan dhashaan ahay 7 cunug aan dhalay alxamdulillah waa ii koreen ilmahaykan igu yar waa 4 hadda inaan is daryeelno isbaarno iyo wadankeena dhibaatada haysato dhakhtar la'aanta haysato inaan u gurbano oon maxay anagana aan isku wacyi galino aad u mahadsantahay.